maryan waxa ay la nooleed aabaheed iyo aayadeed oon iyada sinaba u jeclayn maryan hooyadeed waqti ka hor ayaa aabaheed furay kadib markii iyada oo kaliya dhashay ilaa iyo markaasna maryan may aqoon meel hooyadeed adduunyada kaga nooshahay iyo iyada naf ahaanteedaba maryan waxay u go'nayd oo raaci jirtay ari aan tiro yareen oo ido iyo riyaba leh wax dhiiqa ma lahayn arigaasi hadduu yeeshana iyadu awood uma lahayn inay maasho nafteedana uga faa'iidaysato hawsha ariga iyadaa iska lahayd manaaficaadkiisana aayadeed iyo ilmahay dhashay iyagu aan warhayn ee hadba wixii la siiyo iska cuna laga yaabee in maryan ariga caana ka dhadhamiso waase hal mar oo keliya marka dadka intiisa kale ay sanka ka soo celiyaan maryan iyadoo waxaasoo dhibaato ay haystaan ayayan haddana ku nabadgeli jirine cawo iyo maalin waxay ahayd mid dil habaar hiif iyo dibindaabyo joogto ah kala kulanta aayadeed oo iyadoon waxba dhiqin xoolana aan war u hayn had iyo goorna gurigeeda dhexdiisa ilmaheeda ku ciyaarsata maryan dhibaatada culus ee joogtada ah darteed ayay inta baydaday ama fiigtay wixii la hadlaba waxay moodaysaa inay dilayaan masruuf ama biil ayay dilistu u ahayd oogadeeda nabarrada ku yaalna way tira beeleen aabaheed waa iska dhagweyn aan sidaa wax u danayn marmar ayaa laga yaabaa inuu naagtiisoo si xun u rifaysa arko xaarxaariyo kana qabto inta badanse wuxuu u qaataa dilista maryan la dilayaa inay tahay lexajeclo iyo coodkoo la rabo in si fiican loo dhaqo maryan ama ha la dilayo ama ha lala hadlayee ma hadasho maxaa yeelay cid ka guraysaan jirinba deegaankay ku noolayde aadka cadowga ugu ahaa darteed ayayba noqotay qof mucaqadad ah aan sidaa wax u gelin aan nixin qoslin farxin hadallada dadku kula wada hadlayaana aan sidaa u danayn maxaa yeelay dadkoo dhan cadow ayay u haysatay aayadeed waxay aad u taqiin tirada iyo suuradinta ariga taasoo mar alla markay ogaato in wax maqan yihiin sidii shabeel ceesaan arkay ugu soo haliisho iyadoon waxba weyddiin galabtii dambe ayaa waxa dhacday in gooray maqrib ahayd arigiina soo xareenayo aayadii ay towday orgi keli ahaayee ariga ku jiray aayadii dhowr jeer ayay aad ugu noqnoqotay indhayntiisii waxay ogaatay in orgigaasi maqan yahay maryan oo horayba u towsanayd orgiga halgaadaha ku iman doonana horay ugu soo tala gashay ayaa aragtay in aayadeed la towday orgigii wakhtigu markaa waa habeen maqrib himahimow ah aryowgii xeroodeen geelashiina soo dheelmad habqamayaan waxaa iyana cidaha kuurka u wada fadhiya libaaxyadii dadqaadka ahaayee meelaha wax ka jeeqaaqaya aabbaheed ama odaygii reerka wuxuu weli ku maqnaa soo dheelanka hala dhowr ah iyo gaadiidkii cidda maryan aragtay in lagu soo socdo aayadeedna iyadoo tib weyn sidata ay soo malabsanayso way tallantay oo istiri maxaad yeeshaa labada dhanba u daran oo hadday sugtana tibtaa ayaa ka meel waayaysa hadday carartana waxa ka horreeya waa libaax iyo dugaag aan u daahayne haddiiba kala jabsanaya waa markii ugu horraysay oo hadal nooli maryan afkeeda ka soo yeedho iyadoo tidhi wallay caawa midhaa ima dishid saa kuma sugayee dilkaagana in haddaba libaaxay cunaan ka doortay maryan markii ay sidaa lahayd way sii ordaysay aayadeedna iyadoo ul weyn wadata ayay ka sii daba ordaysay labadooda maryan ayaa dheeraysay haddiibana way ka libirtay aayadii iyadoo usheeda wadata ayay dib ugu soo laabatay gurigii welina waxa ay wadday hiifkii iyo habaarkii ay maryan u haysay goor dambe ayaa waxa soo xarooday geelii oo ay wadaan odaygii iyo wiil kuray ah oo uu dhalay aayadu waxay islahayd maryan waxay la iman doontaa geela hase yeeshee ma dhicin odaygii reerka ayaa tegay maryan oo aayadii weyddiiyey aayadiina waxay u sheegtay inay canaanatay maadaama orgigii weynaa la xaday islamarkaana maryan ay carartay intii aan odaygu jawaabin ayaa waxaa hoos iskula hadlay wiilkii kurayga ahaa maadaama uu aqoon u lahaa dhaqanka aayadii iyo waxa ka dhexeeya maryan iyo iyada wuxuu ku fekeray in maryan la dilay oo ay dhaawac dartii la soo kici la'dahay iyo inay carartay oo meelaha ay dugaag marti u tahay ha yeeshee isagu ma hadline wuxuu ka dhursugay waxa arrinkaasi odaygu ka yeelo
odaygii baa qayliye oo yidhi naa miyaad dishay gabadha oo aad cayrisay miyaadan ogayn in meelaha dugaag dadqaadihii ka buuxaan isla markiiba wuxuu u baxay bannaanka wuxuuna u qayla dhaamiyey maryan isagoo leh maryanay maryan aabba kaalay anigaa kaa ballanqaaday inaan caawa kadib lagu dilini odaygii wuxuu qayqayliyaba wuu quustay ugu dambayntii isaga naf ahaantiisaa libaax ka baqayey markuu meelaha wax dadayayey wuxuu sitay qori uusan sida badanba dhigin si uu isugu difaaco haddii bahal soo weeraro wuu soo laabtay oo jiitimihii inta soo adkeeyey ma fadhiisane wuxuu maryan ka baaray xeryaha xoolaha iyo hareeraha reerka oo idil waxba waa hadba dhan eeg madaxa ruxrux wuxuu yeelana garan waa mar buu is yidhi xaaska ma garaacdaa maadaama ay iyadu u sabab ahayd waxa dhacay haddana wuxuu ku daystay laga yaabee in dhibaatadu meeshay hadda joogto meel ka xun tagto intuu iska soo fadhiistay buu yidhi adaa tolaya ka tali waxay ila tahay reerka gabadhiisii adiga unbaa yaqaan meeshaad ka keeni lahayd adaa lagaaga fadhiyaa laguuna haystaa xaaskii ayaa harag waraabe alla u tuuray meelay wax ka tidhaahdana weysay wax kastana waxaa uga sii daran maskaxdeeduna qaadiba la'dahay berri ahaa ariga raaci doontidaa inay ooyshay ku sigatay adoo nabad la balawaara baloy kaalay lama yidhaah hadday kuu timaadana lama booyo boowow ayay iskula hadashay in cabbaara ayaa laysla hadli waayey wax la yidhaahdana la garan waayey la arag arrintu inay meel aad u xun taagan tahay wax ka qabashana ay ka tagan tahay way garwaaqsiisnayd inay dembi gashay inkastoy qof kibir iyo talaxumo u geysay tahay mar dambe oo dhowr saacadood la odhan karo odaygii isagoon hadlayn ayuu inta dhowr tagaarood ka walamwalamsiiyey qorigiisii oo xabbada dhuunta u yaallaanna inta la soo fadhiistay isagoo salka dhulka ku hayey iska hamiyey xaaskii inta ilmihii oo meelaha kala daadsan guriga gudihiisii u daadguraysay bay iska dhex seexatay meesha hadalka ama daqaqanku aad buu u yaraa doodi kama ay furrayn oo duruuftaa ahayd mid aan oggolaanayn wax nolol sidaa ahi ku sii jirto dhammaan waxa loo wada muuqday dad isku wada cadow ah maryan markay cagaha wax ka dayday ilaa saacado dhowr ah ma joogsane waxay isugu bixisay orod aan kala go' lahayn iyadoo u sansaan eg qof inta baydaday xargagoosatay xabsina ka carartay in muddo ah markii ay sii baydadaysay ayay mar dambe xistay inay carri cidlo ah jeexayso ayna marti u tahay libaaxii dadqaadka ahayd horayna meeshuba u buuxday way istaagtay oo wax dhegaysatay meel kasta sharqan iyo buuq ama hugun ayaa uga baxay baqdintay baqaysay iyo harraadkii dhagajeexay dartood wakhtigu waa gudcur aan waxba la arkayn hadba dhan bay u jeesatay waxay kala garan weysay meeshay ka timid iyo meelay u socoto way dayowday iyadoo iska jahwareersan oo baqdin daraaddeed socon la joogsanna la ayay mar dambe maqashay libaax cidii intay qabowday oo qamandhaco ama jiriiraco lagu jejebiyey bay in cabbaar ah wax dhaqdhaqaaqa iska weysay mar dambe oo libaaxii cidii yareeyey ayay miyirsatay dhankuu ka ciyey mooyee dhankii kale ayay isku qaadday muddo saacada bayan kala goyne orod ugu jeexaysay sayrmada laabmaha qodaxda mudaysa xagashada qoryaha qallalan jalfinta kurtumada iyo dhagxaanta turaanturrada iyo kufidda ku dhacaysay waxay ahaayeen kuwa tiro beelay ha yeeshee ayaan iyadu dhibaato u arkaynin waxay baydadkaas irdaha furan ee aan meel la haysan la sabaysaba ayay mar un istaagtay si ay jabaq u dhegaysato dad iyo dugaagba waxba maqli weysay meeshaydii ayay ka miistay waxay oroddaba mar dambay joogto inay dhacdo ayay goosatay inay indhaysato geedo dhaadheer oo ay dugaagga ka fuusho maxaa yeelay sheekay ku maqashay in marka bahalaha laga cabsado geedo dhaadheer laga fuulo kol dambe ayay ku soo baxday geed dheer oo istiri allayleh ha dhaafine fuul dusha ayay uga baxday geedkii dhibaatase waxay timid markay lulmooto yaa ku haynaya geedka iyadoo sii lulmoonaysa inay seexatana u dhow baa waxaa soo yeedhay cid libaaxi aad mooddo inuu ordayo hurdadii ayaa ka duushay inay dan u ahaydna lagaba yaabee
libaaxii wuxuu soo cadaadaba waa soo dhawaaday mar waa aamusayaa mar dambe ayuu haddana ciyayaa isagoo aad moodo inuu ka sokeeyo meeshuu awal ka ciyey waxay sidaa ahaataba mar dambe ayuu laba soo wareegay goobtii geedka Maryam fuushan tahay ku yiil si kadis iyada ku noqotay ayuu mar aanu ka fogeyn agteeda af labadii yeeray naxday markay soo faniini gaartay ha yeeshee intay laamahay haysatay xajisatay bay isha ka eegtay waqtigu markaa waa goor dambe dayax ayaa soo baxaya oo cir daruur ka maran soo dhex jeexaya dhanka dayaxu ka soo baxayo ayuu libaaxu ka xigaa iyada mar bay aragtay libaaxii oo inta kobtii madaxa kala soo baxay dhulka sanka la soo raacaya sina aad moodo inuu u degdegayo waxa isku dhacay dayaxa nuurkiisii iyo baabushii badnayd ee cadayd taasoo u suura gelisay Maryam in markii ugu horeysay ay ka ilsugato libaax aragtidii way sii naxday waxayna ku sigatay in wadnuhu istaago naxdin darteed libaaxii oo daqaf leh ayaa geedkay fuushanayd la soo wareegay isagu sanka dhulka kama qaadayne oo raadkeeda ayuu ku joogay sidii waxaanaaqay buujeenyaha dhulka ku xoqay libaaxaas ayaa inta sidii wax fariisanaya beerka dhulka dhigtay jeenyahan hore u bixiyay wuxuu isku dayay inuu ogaado qofku ceyrsanayay meeshuu geedka ka saaran yahay isagoo sidii wax jiifa ah ayuu kor iyo geedkii soo eegay uu soo eegayay maahee hadiiba isha ayuu ku dhuftay Maryam oo sidii calal dhamaadee hirigi la hartay meel aad isaga uga fog laan ugu maran Maryam iyadoo geesa leh timaheeduna qodax yihiin ayay si buuxda dhaqdhaqaaqiisa indhaha ugu haysaa labada gacmood waxay si buuxda ugu haysataa laan ay xabadkana ku haysee agteeda ah iyadoo rakaysatay salkana ku haysa laan laba madax leh meeshay ka kala kacdo waxay jeclaan lahayd inay haad noqoto sidii shimbiraha meeshaas yaabka leh ay ku xayiran tahay si ay si sahlan uga hagaafto يعني معلوبة تكبها المالية الله يو فلان كبابول كما ملايساني إدحيو الله يو isagii markuu arkay inay adag tahay si loogu tago ruuxa isaga ah uuna ogaaday maadaama uu yahay bahal dadka aqoon u leh in qofku aanu sida u weyneyn ayuu isku dayay inuu bajiyo waa intaasoo intuu kala bato bardado uu soo dhacay wuxuu ahaa bahalkaasi mid inta libaax weyn yahay weyn dhagorta guudka baabusha iyo haylimaha ku yaalna ay tirabeeleen aad buu u dhisnaa una lixaad weynaa surkiisa hilibka saaran iyo xoogga ku jira daraadii awood uma lahayn inuu isagoo taagan kor eego sida daraadeed kor markuu eegayo waa inuu u seexdaa isagoo meesha baraaqa Maryamna eegaya ayuu inta afkii laba ka kala dhigay intuu awood lahaa gurxan iyo gunuunuc ooda ka soo qaaday uma sii sugine intuu kor u booday uu sidii wax geedkaba samada ku calaqaya cidiya aad warma moodo intuu surtay gilgil maagay cirkii iyo dhulkii ayaa qaylo iyo sharqan isqabsaday geedkii baa dhaqdhaqaaqay Maryam baa intay itaal lahayd waxay isugu geysay laantay haysatay nasiib wanaag ma ay soo dhicine meesheedii bay ku mitiday inay la soo jiifto iyada cabsi iyo qiyaamo u haray ma jirin waxay ugu muuqatay in dhulku wada gariirayo dabaylo iyo duufaano dhacayaan ciidu dhaqaaqsan tahay adduunkana gogashiisa loo laabayo aan wax harayaa jirin haba yaraatee meel loo irkado ama ciirsi la bidaa uma ay muuqan nafta oo daysan bay sugaysay muuqaalkeedu wuxuu ahaa qof inta awalba itaal la'aa haddana tan dhex galay madax yare laba indhoodoo galka ka baxsan oo aragoodu ama daymooyinkoodu meel kaliya haysto af laba daan noqday luqun aad moodo in kol hore naftu daysaye qallalan bay la soo qotantay libaaxii markuu cabbaar meeshii gilgilay siduu rabayna ay u noqon weysay oo Maryam soo dhici weysay uu inta jijimicsaday ilka aad moodo qoryo miibacaho meel ku rarnaa muujiyay carab aad moodo sanbab cabbaar kowraxsanaa intuu hadba dhan u eriyay shaarbahana marsaday uu tartiib sidii wax tagaya u sii tallaabsan
maryan way garansiisnayd inaanu ka dheeraan doonine iyada uu isleeyahay aad degtid waa intaasoo istiraahdo tageeye meesha ka carar markaas waqtigu waa gelin dambe waagiina ma foga libaaxuna wuxuu dhibsanayaa waaga ku baryaya isagoo ka xun cashala'aanta ku dhacday caawa ma uu fogaane intuu meel ku dhow dhabbacday wuu si qarsoodi ah ilqooreedka uga eegayaa maryan intiiba ooggii baa istaagay iyadoo sidii kuurka la isugu jiro isagiioo halkii wax jeeqaaqaya ayaa dhegtiisu jabaq maqashay intuu sidii wax xanaaqay booday buu u kuurgalay waxa jabaqda yeertay tahay wuxuu ka xumaa in laga sii daayo qofkan u xiranay isaga siday la tahay uu maray noqotaba afka u ridan doono wuxuu dhagaystaba wuxuu ogaaday in hadal soo gelayo wuxuu ku tallamay inuu dadka soo socdo intuu u kuurgalo wax ka qaato iyo inuu tiisatan majinta uga xiran ku nasiibsado bulaanka iyo ragga hadlaya badnaantiisa ayaa cabsi gelisay inuu iyaga weeraro taasoo is yiri armay kugu dhacdaa wax badso wax beel bay leedahay waxaa jiray in meeshu dhabaha loosi ahee dhaanka iyo safaradu aan kala go'in ahayd waxa soo bulaamayana yahay safar cidaha ka yimide magaalada u socda waxana wata rag hubka buuxee ugu soo talagalay inay isaga difaacaan dad iyo dugaagba libaaxii arag in arrintu qasan tahay waxa soo socdana ayaan ka leexanayne iyaga oo ku soo foolleeyihiin wuxuu goostay inuu maryan mar kale weerar cabsi gelina ku qaado waa intaas